mujtamaca muslimiintana maanta caalamka meeshay doonaan baha joogaane dhallinyaradeenna mujtamaceennu inta badan waxayna saameeyey waa reer galbeedka tobanka cashuura waxay u soomayaan baa la yidhi waa maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey ee dariiqa looga furay badda fircoon wajeeshihuna laga halaagay markaa waa shukri bay u soomayaan markaa buu nebigu yidhi annakaa nebi muuse uga xaq leh waa soomaynaa cashuuree sooma kal dambe haddaan gaadhana buu rasuulku yidhi sagaalaadkana waan ku daray saa yuhuudda u khilaafay cibaadadii buu nebigu yuhuudda ku khilaafay innagana maanta dhaqankii baan ka qaadanay tarbiyadii baan ka qaadanay tacliintii baan ka qaadanay zawaajkii baan yuhuudda kaga dayanaynaa tacliintii baan kaga dayanaynaa dhar xidhashadii baan kaga dayanaynaa marka saxaabigii dahabkii nebigu uu ka tuuray inuu qaato uu iska diiday limaada waxuu garanayaa nebi maxamed qadarkiisa sal allahu alayh wasalam waa jiilkaasi qarn alawal waa waxaan lagu gaadhi karayn bay kamid tahay arrimahaasi inay gartaan nebi maxamed qadarkiisa calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid uu nebigu ku yidhi nin ansaariya buu ka yidhi inantaada ii guuri aniga markaasuu yidhi ninkii ansaarigii nicama wa quratu caynin buu yidhi oo nebi allow adiga ayaa ku heli kara buu yidhi adiga ayaa ku heli kara markaa buu nebigu yidhi anigu ma rabiye waxaan u rabaa julaybiib baan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiine oo dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaano dabeecadiisa oo dabeecad waxaa lagu yaqaana xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenkuu la kaftami jiray markaas dadka reer madiine oo dhan waxay isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisina waa nin dabeecaddiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftamaa marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanayaa madiina o dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninkaa ninkuu nebigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigii yidhi nebi allow adiga ma inantayda ayaaba kuu heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nebigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allow haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabse binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuhmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabse waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabse uu cuhmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagdaadii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka inaku aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan beryahan moogtaha laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horeeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso
waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaalana markay u baahan tahay ama aabaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooyo la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayay adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintu kaa ilaalinaya fasaqadu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan inagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tidhi aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo dhuun doona maaha abibakr cumar isagaa u doono u hasaawo inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xaggeena waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagaluu hayaa uu nagu camaynaya cumar baa socdo cumaan u bandhigay cumaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xafsa radia allahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayhi salaatu wasalaam daadna markaa buu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yihi haa waan kuugu hayaa hortaa baan cumaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafiyuu i siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xafse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xafse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiistay uu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuul allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiibna waa ninkan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu yidhi julaybiib haa uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaadii markaa buu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama waquratu caynin waquratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa oo indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii anaguna raalli baan kala noqonay
markaasa saxaabigii baa nabiga u yimid oo nabi allow inantii Julaybiib waan siinay guurkii uu Julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxayay buu markaa Julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jabiyay la laayay ay baxsadeen ee meydkii dhaawacii la kala guranayo ayuu nabigu saxaabadii ku yiri war anigu nin baan tabaya war nin baan arki lahay markaas la yiri nabi allah waa ninkee markaas Julaybiib awaya markaas meydkiisa la doondoonay waxa la arkay isagoo 7 mushrikiin intuu dhulka dhigay isagana markii dambe lagu daro meeyda oo dul yaala markaa buu nabigu yiri wallahi kaas Julaybiib anu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nabigu hadalka ku celiyay ila anigu Julaybiib anu iga mid yahay ana isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raaliga ka ahaabo u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqiga weeyaan markaasuu nabigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqada sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu ciriiri weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh armala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yiraahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaan laana ducada nabigeena ku dhacday sallallahu alayhi wasallam marka nabiga alayhi salatu wasalaam qadarkiisa garanayaan qiimihiisa garanayaan nabiga alayhi salatu wasalaam ayaa suuqa Madiina isagoo maraya nin wuxuu arkay awr iibinaya markaasuu nabigu yiri awrka ma iibinaysa ha imisa inta way heshiiyeen markaa buu nabigu ku yiri soo raac awrka lacagtiisa ma ku siinayay waa reer baadiya ma garanay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaalada Madiina wuxuu soo galay awrka inuu iibiyo hogaankii buu hayaa rasuulku daba socda markaa buu nabigu degdegay maadaama nabigu xaq lagu leeyahay wuxuu doonayaa inuu ninkan hore lacagtiisa u siiyo ninkii reer baadiyana aayar buu u socdaa maadaama safar ka soo galuu soo daalay aayar buu u socdaa oo daba bildhaansanaya markaa buu nabigu soo daymoodo wuxuu arkay ninkii oo nin kale la taagan oo awrkii ka iibinayo markaa buu nabigu soo noqday wuxuu arkay ninkii oo lacag loo tirinayaba markaasuu nabigu ku yiri war xagee soonigii kala iibsanay ma ninkii reer baadiya idhigama iibsan markaa buu nabigu waan heshiinay tamal bay qiimihiina waan ka wada hadallo waan isla afgaranay waxaad hadda ila socotay kaliya in lacagtiisa ku soo siiyo markaasuu ninkii yiri may igama iibsan markaa buu nabigu leeyahay war waan ka iibsaday muslimiintii reer Madiina dhanba ku soo ururay wala isku dhageysanaya acraabigi wuxuu leeyahay igama iibsan nabiguna waxa uu leeyahay war waan ka iibsaday waan ka gatay iyo igama gadan ninkii acraabiga ay war inaad iga iibsatay marxaati ma haysata markaa buu nabigu dadka sidaa u eegay Khuzayma ibn Thabit nin leeyda oo reer Madiina soo boodo yidhi ana marxaatiya buu inuu nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam uu iibsaday maragtaana awrka inuu ka iibsaday ana maraga furaaya markaa buu nabigu sidaa u eegay Khuzayma markaa ninkan kale iibsanayna meesha ma joogine seed marxaatiga aniga aad iigu qaadaysaa markaasuu yaa rasuulallah warkii samada ilaahay kaaga soo dhiibay ee jibriil uu ku keenay baan ka rumaynay ma bini aadan aad baan u sheegay ma hadal ma bayciga adoonkan in dhex maray baad been ka sheegay inaad ka iibsatay waxaan ku rumaystay tirida aad tiri waan ka iibsaday inta baan ku sadaqay buu yiri markaa buu nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri maanta laga bilaabo Khuzaymah ibn Thabit saxaabiga la yiraahdo maanta laga bilaaba halka laba nin marag looga baahan yahay isaga kaligiiba ku filan buu rasuulku yiri markiiba nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu siiyay shahaada ayuu siiyay shahaadatu Khuzaymah ta'dilu bi shahadati rajulayn laba nin halka marag looga baahan yahay Khuzaymah kaligiiba ku filan buu nabigu alayhi salatu wasalaam laana saxaabadu waxay garanayaan nabi Muhammad qadarkiisa mar haddii ay maqlaan ilaahay baa sidaa yidhi oo nabi Muhammad baa sidaa yidhi boqolkii boqol